بسم الله الرحمن الرحيم مركور waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka labaad ra'iisul wasaaraha qaranka iyo dawladda Soomaaliya waxaan filayaa maanta waxaan nahay safar hadii Ilaahay raali ka noqdo waxaan rabnaa inaan gaarno gobolka Gada Ilaahay waa nabad maxaan ku raadayay airportka nagu keenay Ilaahayna waxaan leenahay nabad ha nagu geeya waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa qayladii iqlaafka ka jiray airportka Muqdisho inuu nabad galiyahay dawladda Soomaaliya amarka ra'iisul wasaaraha uu bixiyay inuu socday in is-hortaag aan lagu sameeynin qaf socdo in maxaan ku raadayay qaf soo galay aan is-hortaag lagu sameeynin in xor uu yahay ciidamada booliiska iyo ciidamada dawladda waxay saakin uga keeneen baabuur hotelka aan joognay garoonka ayagaana keenay haddana waxaan ugu bixinaa si nabad galiyo ah insha Allah ta'ala waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed markii inuusan shaki ku jirin airportkan inaad ogaataan ciidamada waxay u shaqeynayaan si sax ah qafkii mas'uul ahna ayaga si sax ah ku gudbinaya cid la ceshanayo gaar loo celiyay ma jirta cid loo celinaya daartan waa cid kulay maxkamadda ay haysato oo sharci ah oo la wada og yahay oo dawladdu ay ka warqabta laakiin qaf muwaadin ah oo la haysanin oo dambiile aanan hayn cid ceshan karta male amarka ra'iisul wasaaraha saas u baxay sidoo ra'iisul wasaaraha uu yirin waa u fuli aad baan ugu mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha waxaan leenahay khayr Allah siiya ummadda Soomaaliyeed oo dhan u wada duceynaysa insha Allah ta'ala dawladana waxaan leenahay tii kor u kacda Allah ka dhiga doorasho fiican la galiya insha Allah madaxweyne saxna Allah noo soo saaro aad u mahadsantiin